Filimkeena maanta waxa uu ku bilaabmayaa wiil yar oo xabxab cunaya laakiin intuusan xabxabka cunin lafaha ama iniinyaha yaryar ee ku jira iskama uusan saarin kadib laftii xabxabka caloosha ayay geed ku samaysanaysaa aroornimadii markii uu soo kacay. Sidaan aragno furaashka dushiisa ayaan caleemo ku araganaa kadib markii uu suuliga galay sankiisa ayuu ka soo jiidayaa laan dheer oo sanka kaga dhex jirtay kadib wiilka yar aad ayuu uga naxayaa dib ayuu u dhacayaa sidaa aan aragno hadda wiilkii yaraa. Sanka laamahan ka soo baxay ayuu isku dayayaa inuu dib u celiyo laakiin ma awoodo xitaa markii uu iskuulka imaaday way ku yaaleen caleemahaasi macalimadiisii ayaa ku kuftay geedihii wiilka yar sanka ka soo buqanayay kadib markii uu maamulada iskuulka aragtay xaaladda wiilka yar waxa ay isku dayday inay caleen ka soo jiido wiilka yar sankiisa laakiin waxa wiilkii yaraa sankiisa ka imaaday dhiig kadib waxaan ogaanaynaa inay waxaasi dhiig ahayn laakiin ay yihiin biyaha xabxabka ama qaraha dhakhtar ayaa lagaynayaa wiilka yarsi ayuu u baadho laakiin indhaha wiilka yar waxa uu ku arkayaa lafihii xabxabka kadib markii uu wiilkii yaraa afka kala furay waxa lagu dhex arkay xabxab caadi ah oo wiilka yar afkiisa ku dhex jira kadib caleemihii oo aad ugu dhaadheeraaday ayaa waxa la damcayaa in wiilka yar laga jarjaro ku dhaga ka soo baxay iyo kuwa sanka ka soo baxay iyo kuwa meelaha kale ka soo baxay ee aadka ugu dhaadheeraaday kadib wiilkii yara maqaskii waxba uu ka qaadi waayey miishaar ayaa la damcay in dhirtan wiilka yar ka soo baxaysa lagaga jaro laakiin wiilkii yaraa wixii uu orod hayay ayuu orday isagoo ordayaa ayuu mar keliya siibanayaa laakiin waxa uu ogaaday inuu taraaraxayo oo aanu si fiican u dhicin kadib waxaan ogaanaynaa inuu uur leeyahay laakiin sidaad moodeen maaha xabxab sideed bilood ah ayuu caloosha ku sidaa markii uu istaagay wiilkii yaraa isagoo la yaaban waxaan weyn ee caloosha kaga raran ayuu mid ay saaxiibo yihiin dafayaa kadib waxaan arkaynaa wiilkii yaraa oo tartan isku diyaarinaya laakiin waxa uu ka murugaysnaa waxaan weyn ee caloosha kaga yaala markuu carar idhahay ayuu biiti isku rogay kadib sidii uu ula barogmayey ayuu wixiiba wada dhaafay kaalinta koowaad ayuu sidaa ku galay kadib markii uu guulaysatay wiilkii yaraa waxa uu isdhahayaa iska ciyaar isagoo ciyaaraya oo kolba meel ku boodayaa sidii uu u ciyaarayay ayuu markii dambe meel dheer ka boodayaa markaa dhulka ayuu ku soo dhacayaa kadib markii uu qarxay wiilkii xabxab ka ahaa waxaa ku soo yaacaya carruur yar yar oo kale kadib iyaga oo aan ogayn inuu waxaani maalin maalimaha ka mid ah uu ahaa wiil yar ayay cunayaan